tirada dhalinyarada ee ciidamada booliiska Soomaaliya ku dileen magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay gaarayaan 103 qof ku dhawaad hal sano iyo bar waxaana markii ugu horeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xukun ku riday askariga ugu horeeyay ee dila qof shacab ah gaar ahaan mooto bajaajle. maxkamadda ayaa go'aan ku dhawaaqday Sabtidii waxaana askariga dilka lagu xukumay la sheegay in qof shacab ah oo bajaajle ah uu ku dilay isgoyska Tarabuunka qof kalena ku dhaawacay waana askarigii ugu horeeyay ee lagu xukumo dil sabab la xiriira in uu dilay bajaajle. askariga dilka lagu xukumay oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa ciidamada booliiska isku soo dhiibay maalintii uu dilka geystay isagoo ooyay oo sheegay in rasaasta uga fakatay ciidamo ku sugnaa rugtaas ayaa iyadoo ay dadweyne maqlayeen kula taliya askarigan inuu cararo balse uu isaga go'aansaday inuu isdhiibo kadib markii uu naxay isla markaasina uu baxsan waayay. askarigan oo ka tirsan booliiska uu ka soo jeedo beelaha loogu yeero 0.5 ee la yaso waxayna taasi dowladda u fududeysay in go'aankan ay qaadato maadaama aysan cadaadis kala kulmayn beelahaasi. taliya ku-xigeenka labaad ee ciidamada booliiska Soomaaliya General Zakiya Xuseen oo barteeda Facebook ku daabacday go'aanka maxkamadda isla markaasina soo dhaweysay go'aanka ee xukunka dilka waxaa darawal u ah askari booliis ah oo 3 bil ka hor shacab bajaajle ah ku dilay isgoyska Howlwadaag ee gobolka Banaadir. askariga dilka Howlwadaag ka geystay ayaa waxay qaraabo dhow yihiin General Zakiya waxaana dilka kadib laga dhigay darawalka gaarka ah ee Zakiya waxaana arintan u xaqiijiyay calanka Janel Abtiga iyo hooyada dhashay wiilka uu dilay darawalka Zakiya kuwaasoo loogu hanjabay in la xiri doono haddii aysan arintan ka harin. sidoo kale qoyskan ayaa calanka Janel u sheegay in 3 jeer ay la fariisteen Zakiya kadibna ay ciidamada ku wargelisay inaan loo soo deyn karin qoyska waxaana halkaasi ku dhamaaday ama ay qoyska ku joojiyeen baadigoobkii ay ugu jireen cadaaladda wiilkooda.